هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورهدي الله يمقلي هاي سو قرا. Can you hear me guys? ما يمقليسان؟ ورما الله يمقلا. أيام أنا كم مقنا بالكو سفر شقة أحبان كون مشغول سنة. مركا ما أنت الحين دوني أنا أرني تشع كسية تشع. أرني تشع إنا كسية. أرنت أنا ربي أنا تشع كسية هسكو خلدنا. أرنتي عافيمات كذا ميديسينكي دواء ميديسين دكتوركي قليهم دواين في يقانيا إيه وحنا كهذا ياسكو خلدنا ما مقليس الصومالي ده كويل ما يمقشان ما أنت لكن أرين آد مهم وما كشكينا أرين آد مهم والصومالي ده ولي بآد وقول بدر I don't know وحكو بدي يقرن معي أرين ولي بالصومالي ده آد وقول بدر واحد مقل من هبل بميل فدي يقول شبي سقوا ميل فدي بو إسكتشوا ما أوروبا أما واحد مقلون هبلا عرفتيني كعضاء واي شبته وقربش أوه ماي جاد أوكي ورا تيمي واي صباح بدار حم الله يا تيمي واي صباح نيو تلو بدارته إيو تلو نيو جبوجا بدارته إيو ده مال لقى قط وأنت متشرتا مال يرون لقلق يرون لقلق أو لقى قط تلو متشرتا بدارته إيو يدأ جيريدا laga badhuuman maayo taas ya geerida horta iyada laga ma badhuuman karabe laakiin gabowgan bidaartan iyo da'dan hal mar 40 30 60 70 oh my god 70 baan marayaabe wallahi okay bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayidina muhammad ilahu rabbiga oo dambigi waalidkeen dhaaf لما طلب تيرون إله النوافج إله خاتمة خير نو ختم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إله النوافج إله نلقل إله نكلنسي إله النسي نلقلنسي إله أضام محداله ذنبي والد كان الله ضعفه أنت النول إله يوم نقاصته أنت حنون سنسي هو يدي كشرت إله نقاصته أنت ما تي أبياشين يا أويدي يا معلمين أنت كشران إله ربك يجنون حريص أنت مركز تراهضه هل كان دونتا كدبالة أو كان دونتا كدبالة وحاج شراء هدي هذه مقليسان وحاج شراء بالانس وحلي له بالانس وإنجليش وقياس اسم قياس كفت ميلا وذا سارية معروف نوعاس هدي قفك بالانسيga كلمه قفك هدو بالانسيga كلمه شركيسه سيده إلهي u sameeyay sidii ilaahay ugu tala galay laakiin markaad offer eating samayso cunto badan aad iska cunto kan qabso lagana yaabo in lagu leeyahay marka meelaha markaad marayso lagu leeyahay oo hilib badan baa ku saaran you are very heavy hilib badan baa ku saaran 200 kiilo 150 baad 90 baad ama ka badan ba haddana aadan kici karayn alla lugaha alla dhabarka ama waxaaba iska dhacdaba inaad dhinac iska yar weynta sidaydan oo kale madaxu ku yar weyn yahay ayaduna way dhacdaa soo jirka intiisa kalena gacmo dhuudhuuban luga dhuudhuuban iyo madax weyn u dhacdeeda wara dadka aniga isku soo tusaale qaadanay idinkeedin ma arkaya Soomaaliya idinkeedin ma arko ana wax kasta tusaale u soo qaadanay idinkeedin ma arkaya waxaa laga yaabaa sidaad u joogto ilkahaagu inay iska daataan ma aha qaybtii dentistaha dawada ma aha qaybtii farmas dentistayaashii qaybtii ilkaha kama sheekeynayo qaybtii nafaqadan ka hadlaya nafaqada cimriga jirka ama ilkaha ayaan ka sheekeynaya okay haddii ilkahaagu iska duulaan iska soo daataan laba waa midu inuu macaan kugu soo jiro albaabkii inuu macaan soo garaacayo iyo inay cunto xumo ku hayso inay ku hayso ama cunto xumo inay jirto waa labada mid nooc wax kale dhaqaatiirtana weydiiyo wax yar baa doonaysa iska qanid ilkiiba iska burburaya iska soo dhacaya ama way iska jeexmaya ama macaan iska baad ama cuntada aad cunayso wax ka bedel simple that waa intaas wax kale ma jiraan wax kale oo meesha yaala ma jiraan
cuntada aad cunayso okay waa hagaag ariyaro kalaan isbaba yar ariyaro kalaan doonayna qac ka sii niyo waxaan weydiiyay dadka Soomaalida carruurta Soomaalida qurbaha ku dhalatay carruurta qurbaha ku dhalatay ama ayagoo yar yar yimi wax ilka dhaadheer la malaha ilka dhaadheer wax la malaha ilka raaraaranna malaha ilka jajabanna malaha markii laga yimaado dhakhaatiirtu inay caawiyeen markii taa laga yimaado maxaa caawiyay oo kale waxaa caawiyo cuntada simple da taasaan markaa idinku soo qaadanaya waxaa caawiso waa cuntada wax ilka dhaadheer ma laha wax socod xun ma laha hataa wax socod xun ma laha carruurta hataa qurbaha ku dhalatay hataa qof socod xun ma laha dhammaantood waa wadaad mooda military wax laga dhuudhuuban leh ma laha hataa waxaana idinka sheekeynaya waa cilmi research iga faa'iidaysta idinkuna barta researchna ku sameeya ha isla xastina dadkana u sheegay waa hagaag balansiga qofka balansigu markuu ka lumo maxaa ku dhaca balansiga qofku markuu ka lumo waxaa ku dhaca inuu yidhaa inuu kici kari waayo inuu ordi kari waayaba waa qof dhalinyara waa 40 jir waa 30 jir waa 50 jir ma ordi karaba totaliba ma ordi karaba asagoo taagan intuu foorsado ma soo qabsan karo muruq baa ay galay dhabarka baabay baxay miskiin waa qayb cuntada kamid ah cuntadu balansigeedu hadduu kaa xumaado ya gacmo dhuudhuubanna waad yeelanaysaa sidaydan oo kaleeto gacmo dhuudhuuban ood moodid baasta vina baa gacmaha baastadoo kale waad yeelanaysaa calool yaroo kuusanna waad yeelanaysaa ilkahaaguna khafiif bay noqonayaan waa markay cuntadu kaa xumaato اللهم صل على سيدنا محمد maxaa qurxiye markaa jirka maxaa qurxiye balansiga jirka maxaa qurxiye ma bariis baaquli weyn oo bariisa iyo bileed weyn oo hilib ah labadaa kaliya miyaa jirka qurxiya no jirka ma qurxiyaan dhinac bay weyneeyaan waa over eating cunto zaa'idaad cuntay balansigaagii baa weynaanaya shaki kama joogataa dhakhaatiirtiinana weydiiya waxaad arkaysaa qof siduu u joogo lagu leeyahay asagoo fadhiyuu jabay wuu jabay hebel ama hebla way jabtay maxay tahay talo markaas waxaa ka maqan iron balansigii jirkaa ka maqan cuntadii baa waxaa ka maqan wixii qofkan waxaa ka maqan qofka balansigii baa ka maqan waa hilib badan yahay 130 kiilo weeyaan haddana wuu jabaya haddana waxaa lagu leeyahay ma kici karo ama ma socon karo maxay tahay waxaa ka maqan fitamiinadii kala duwanaa hal yar baan idinku leexinayaa markaa wax yar baan ku leexinayaa balansiga jirka waxaa qurxiyaan idinku leexinayaa wax yar oo kan waa liin tusaale yar baan tusayaa very simple waa liin talow Soomaalidu liintan inta ay maqaarkan iskiinkan kore intay ka saaraan ayay inta gudaha ku jirto oo qabow oo intii macaaneed oo dhaacaan intii macaaneed biyaha lahayd bay ka cunaan amray sax ma yaa sida ila qaba waa sida aan sameeyay markaan badowga ay tuulada la iga soo kaxeeyay waxaan cuni jiray gudaha waxa ku jira waa markaan badowga ahaa yaa ila qaba sideedoo kale yaa badow ah okay kan waa tufaax muxuu taraa waa tufaax kani muxuu taraa wax la hadda aan hal mar ku soo koobi kara ma waxa 2 iyo 3 jeer iyo 3 cashir iyo 4 cashir iyo waxa ku soo joogi kara ma number 1 caloosh horta wuu jilciyaa qofku hadduu calooshiisu jilicsan tahayna caafimaadkiisu waa very high dhakhaatiirtiinana weydiiya anaana hadda idin sheegaya qofku hadday calooshiisu jilicsan tahay caafimaadkiisu waa very 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 good haddii calooshiisu adag tahayna caafimaadkiisu waa ila meerayso waa ila meerayso kolba dhakhtarigii gee weeye markaa muxuu taraa markaa calooshuu jilciyaa kow cholesterolka subaga cholesterolka la yidhaahdaa Soomaalida ku badan Soomaalida 80% cholesterol bay qabtaa waliba markay tirada 40 markay gaaraan bay ku bilaabataa hawshaasi muxuu ma ka taraa yes cholesterolka wuu dajiyaa wuu qaboojiyaa subaga cholesterolka
tufaax wuu qaboojiyaa calooshana wuu jilciyaa haddii cholesterolkiina kaa dego calooshuna ku jilicdo caafimaadkaagu markaa wuu fiican yahay ila meeraysa markaa ma aha waa kan isaga oo kale haddana waa kan waa tufaax muxuu taraa labadaa qodob markuu tufaaxu taro waxa kale uu taraa maxay tahay keligii baad cuni kartaa waad ku qureecan kartaa xabba tufaaxa iyo caagadaas oo biyaha 5 miligrama intaasi quraac way kugu filan tahay meeshaad baaquli bariisa ama aad ka cuni lahayd baaquli beer ah iyo canjeero waa cuni no problem iska cun laakiin ogow haddii subax kasta aad cunto baaquli canjeera iyo mandiibad beer ah balansigaagu waa lunsan yahay inaad dhinac u weynaanaysa shaki kama joogo inaad fool xumaanaysana shaki kama joogo gacmo dhuudhuuban iyo calool yaroo kuusan inaad yeelanaysana shaki kama joogo labadaaba waad yeelanaysaa waayo because hal shay baad cuntaa hal shay baad maalin kasta cuntaa every day you eat one thing one item baad cuntaa you don't need it marka uma baahni maxaad u baahan tahay 10 shay oo kala duwan oo caloosha ka buuxin ma caloosha ka buuxin ma aha macna markaan ku leeyahay tufaaxa cun 10 xabbo tufaaxa cun ma waa over eating markaa waxaad ka dhigtay sidii hilib iyo bariis oo kala camal ah cuntay tufaaxi saa looma baahna markaa 2 xabbo tufaaxa xabbo tufaaxa isanaf hadda ka hor baa waxaan ka sheekeynaya ukunta sidii loo cuni lahaa qof Soomaaliya waxaad arkaysaa 5 xabbo ukun hal mar cunaya kogaasuu hadhowna wuxuu ku leeyahay waan seexan kari laah wartalo maxaan sameeyaa 5 xabbo ukun buu cunay kogaasuu ku leeyahay waan seexan kari laah waxaan hadda aan idin tusayo hortiina muuqdaay talo ma fetch baa mise waa fruit halka yaa igu soo qori karaa is the fetch or fruit waxani ma fruit baa mise waa fetch talo waxani intiina daawanaysa waxay sugo ilaa hadda wax soo qoray ma arko dasmiin waxay tilmaamaysaa dadka Soomaalidu inay waa sideedoo kale waa markaan badowga ahaa tuulada markii la iga soo kaxeeyo oo kale wayaan xaal tuulada markii la iga soo kaxeeyay badowga ahaa oo kale mar aad dadku ku jiraan runtu waa macaan tahay very good okay imisa qof waxay tiri waa fruit very good waa fruit ma sha Allah basashu ma fruit ba mise waa fetch su'aal kale aan dhex dhigayaa basashu ma fruit ba mise waa fetch si fiican baad uga soo jawaabteen lintu waa fruit banana okay labadan tufaax marka differentiga u dhaxeeya ay sheegi kara labadan tufaax what's the difference maxaa u dhaxeeya talo kan miyaa la kariyaa talo kan ma la kariyaa mise sidan ma lagu cuni karaa talo misaal miyaa la kariyaa waxan sidan ma lagu cuni karaa dhanka kale markii aan idin fiiriyo Soomaalidu way nacabtaa ereyga haddaan u sheego dhanka kale markii la sameeyo khamriga waa laga sameeyaa tufaaxan hadda idin muuqdo khamri waa laga sameeyaa cabitaan caadiyana waa laga sameeyaa labadaba okay very good si fiican baad uga soo jawaabtay su'aashii aan idin weydiiyey ee ahayd waxaan ma fruit ba mise waa fetch thank you afar gabdhoodii si fiican bay uga soo jawaabeen okay basashi baa soo hadhay basashu ma fruit ba mise waa fetch hello guys may maqlaysaan vegetable oh that's good sahra ka soo jawaabtay thank you sahra cabdi baa ka soo jawaabtay basashuna waa vegetable aniga hadda waxba idin sheegay dhageysta markaan badowga ahaa tuulada markii la iga soo kaxeeyay Soomaalidu kulligood waa caasimada ku dhasheen mood badowga markaan ahaa tuulada markii la iga soo kaxeeyay basasha ma aqoon waxa la waxay
maxay tahay ma fruit ba ma veg ba ma haruur ba ma masaga ma digir ba I don't know ma kala aqoonin ardayduna way igu qosli jireen markii la igu yidhaahdo tufaaxu ma veg ma mise waa fruit grape ma fruit ba mise waa veg markii la igu dhaho haddana waxyaalaha macaan la i weydiiyey dessertka ma taqaanaa waxyaalaha dessertka la yidhahdo cold dessert iyo hot dessert baa kala jira wax la yidhaahdo markii la igu dhaho keeg cold dessert ah keebaa macaanka qabow ah keebaa macaanka la kariyey ah macaanka kulul iyo macaanka qabow oon wax oo dhan kala garan waayi jiray aan odhan jiray keeg uun ku daa wax kasta keeg uun ku daa ardadu way la yaabi jireen laakiin hadda alxamdulilah waa hagaag aan ku soo noqdo markaa topicaygii raalli ahaada qofku markuu macallin yahay wuu iska hadal badan yahay sheekooyin badan buu isdhex dhigaa waayo wixii baa ii wada muuqmuuqanaya ma garanaysaan raalli ahaada arrin yar baan markaa idiin sheegaya carruurta qurbaha iyagoo yaryar la keenay ama halkan ku dhashay markii laga reebo dhakhaatiirtu markay caawiyaan oo macnaha dee ilgu hadduu yar raaraa ayna ilkuhu la yar maaragtay bir iyo wax loogu xidho silig iyo wax loogu xidho lagu yar qurxiyo mooyaane intaa markii laga reebo hal cunug oo qurbaha ku dhasho ilka dhaadheer le miyaad aragteen ilmaha carruurta qurbaha ku dhalatay wax ilka dhaadheer lama laha wax ilka jajabanna ma laha wax ilkahoodu dildillaacaanna ma laha maxay tahay waxaasi qaybta nafaqadaan ka hadlayaa maanta nafaqada faytaminadan ka hadlayaa waa balansiga cuntadan ay cunayaan ayaa balansiga ay cunayaan baa saxa oo isla siman ma kala dheera dhinac uma weynaan karaan baashan yaa igu sheegay talo baashan meel laga baktiyey ma jirto miyaa waryaa adiga qabo ha okay tufaaxi sahra tufaaxi maadan ka soo jawaabin basashii waad ka soo jawaabtay waxaad tidhi waa veg waa vegetable baa tidhi tufaaxi maadan ka soo jawaabin mar labaad baan kuugu celinayaa hawa gabdhihii iskuullada la geliyay wax ku jiray labadan tufaax differentiga u dhexeeyaa maxay yihiin what's the difference two apples labadan tufaax differentiga u dhexeeyaa muxuu yahay talo ma la iska cunaa labadaba mid miyaa la kariyaa mid miyaa la iska cunaa kee laga dhigaa apple pie haddii aad maqasheen waxa macaane appleka la yidhaahdo dessertka la yidhaahdo kee laga dhigaa labadaba miyaa la kariyaa ma mid baa la kariyaa ma mid baa sidiisa lagu cunaa okay su-aashaas weli maydaan ka soo jawaabin basashii waad ka soo jawaabteen waxaan inay fruit yihiin iyo inay veg yihiinna waad ka soo jawaabteen thank you very much aad iyo aad baad u mahadsantihiin okay haddaad aragtaan marka qof siduu isaga joogo iska liica oo isaga oo ay tahay 130 kiilo uu yahay ama 100 kiilo uu yahay ama 80 kiilo uu yahay la leeyahay dhiig la'aan baa ku haysa hadda markaad meelaha maraysana waxaa laga yaabaa in lagu leeyahay new overweight baa tahay hilib badan baa ku saaran laga yaabaa in lagu leeyahay wax kale ma ah waxa kaa maqan waxa weeyaan ama aad isaga jabayso ama lugahaagu ay u garaacmayaan iyo cagaha u qalab u leeyihiin soo garaacmayaan faytaminadii baa kaa maqan qaybtii faytaminka kaa maqan waxaad cuntaa bariis iyo hilib iyo chicken iyo canjeero iyo muqmad baad cuntaa iyo oodka iyo beer intaa keliyaad cuntaa intaa keliyana maaha wax laga helaa waxaas waxba lagama helo waxaasi waa qayb ka mida irsaaqadii ama cuntadii la cunayay bay ka mid tahay laakiin lagama helayo faytaminadii qofkan balansiga jirkiisa qurxinayay ee qofka isla simayay lagama helayo is very clear soo ma dhakhaatiirtiinana weydiiya waxaad u baahan tahay siduu jirkaagu u qurux badnaado dhinacna aadan ugu weynaanin adigoo 30 sano jira 40 jir aadan ugu ekaanin adigoo 40 jir 80 jir aadan ugu ekaanin mar kasta waxaad cunaysaa balansigeedu inuu isla siman yahay mar kasta oo bariis cunaysana hal cantooba bariisa ka badan ha cunin don't eat the blade buuxa oo bariis inaad cunto blade buuxa saxan buuxa oo bariisa oo blade oo buuxa inaad cunto ha cunin haddii mid aad badsanaysa baasiya bariis hadday isu kaa qabsato
oo mid badsanayso baastada yar badso taasaa la yar qaatay laakiin no kuwa kale ma ah bariisku ma ah okay talow mar kasta miyaan cuni karaa wax khadhaadh u bariis iyo hilib iyo maraq bariis iyo hilib iyo maraq bariis iyo hilib iyo maraq mar kasta miyaan cuni karaa no waad cuni kartaa haddaad rabto laakiin my opinion aniga sidaan kugula talinayo ama ay aqoonta cuntadu tahay haddaad cunto waslad hiliba iyo baaquli bariisa waa qasab inaad cunto waxoogaa yaroo macaana inaad cunto weeyaan codkaagi maxaa ku dhacay codku caadi maa miya ma khaldan yahay bal sug gabadha waxay tiri codkaagi maxaa ku dhacay hadda ka war hadda ka war codkaagi maxaa ku dhacay tufaaxii meesha waxaa ka cad waxaa ka soo wareegay 5-6 daqiiqa ka soo wareegtay xilliga tufaaxa idin weydiiyey labadii tufaaxa ahaa differentiga u dhaxeeya idin weydiiyey ilaa hadda qof soo qoray ma jiro taasmiina waxay tilmaamaysaa inaynaan garanayn wax tufaaxa la kariyo ka la cuno ka qaydiinka ah iyo waxa uu taro wax yar baa dadka garanaya ama wax yar baa garanaya waa qof ama dhigtay ama buusaday laakiin dadku intooda badani ma garanayaan waa hagaag yaa maqlaya hadda waxay tiri aamina muuse abti ma maqlaysaa hadda ma maqlaysaa niyo haddii wadku ku daayaba waxaaban ku daynayn gabow iyo bidaar baaban ku daynaynba aamino ma garanayo I don't know hadda waa okay thank you very much okay thank you very much waxaan doonayaa markaas cashirkan waxaan sababtaan maanta u bixinaya waxa weeyaan dadka in badan baa waxaan idinku idhi balansigaa kaa maqan jirka balansigiisi baa kaa maqan overeat baad samaysay overweight baad samaysay balansiga jirkaaga quruxdiisii baa maqan dhinac baad u weyn tahay si aad u joogtaad iska jabtaa anigoo kalaa ka hadlaya calool yaroo kuusan baad leedahay iyo gacmo dhuudhuuban 40 jir baad tahay ma ordi kartid 30 jir baad tahay 80 jir baad u eg tahay topigaasaan maanta ka hadlay waxaasoo dhanna isku soo xoomiyo waxaas isku soo ururi dhammaantood isu wada keen maxay u yahay qur-aankii kufaan xaddu baa isku foofoosan waxaasoo dhan isku soo ururi waxay soo hoosgelayaan cuntadii waxaanoo dhaniba maxay soomaalidu dhahaan wax cunaano maxaasina maxay odhan jireen meel cuntaan meel gashaana buuramiya iyo wax noocaas okay haddii wixii kaa soo horbaxaba aad cunto oo adigoo 30 jir aad 40 jir u eg tahay adigoo 40 jir aad 80 jir u eg tahay cuntada balansigoodii baa kaa maqan waxaad doontaad iska cuntaa hadhowna waxa ku xigta ila meereysa dhakhtar geeya intaasi dhicin markaas aad life fiican oo qurux badan ugu noolaato soomaalida la hadlaya sidaad life fiican oo qurux badan ugu noolaato waxaad cunaysa waa inaad taqaanaa waa inuu yar yahayna wax badan ha cunina haddaa diintu ma ogolo maanta saad cunto isaga cunayso overeating intaad noqoto ya meel aad ka neefsata aad weyn niman badan oo saaxiibana iyo waagaan badowga ahaa 5 xabbo oo kunaan hal mar cuni jiray kolkaasaan seexan waayi jiray rafaadku iga dhammaan jiray bal waxaa ku ka seexanayaa qof cunay 5 xabbo oo kuna 5 eggs one time one person xabadda ukunta ah waxay u dhigantaa waa 60 gram xabadda ukunta 5 xabbaan cunay markaa imisaan cunay markaa 2 times 6 5 meelood oo min 60 waa imis waxaad arkaysaa qof siduu u joogo ilugu iska soo dhacaya ama ilkaha iska dildilaacaya ama way ka daadanayaan qofka ilkaha ka daadanaya topiga horena waan ugu soo celiyay waana soo qoray iminkana si very clear aan u sharaxaya insha Allah haddii ilkahaagu iska dildilaacaan ama iska jajabaan waa laba midkood wax kale ma dhakhaatiirtiinana weydiiya waa cunto xumo
cuntada oo kaa xun ama macaan baa ku soo haya wax kale ma aha waa labadaa midow ama macaan baa ku soo haya oo jirkaaga ku jira oodan isogeyn very good bal ka warrama qofka kontonka sano jira sidaydan oo kaleeto ee 300 gram oo kuna cunay qofkaas masaga seexanayaba ma seexanayo wuu wareerayaa qofkaas oo from Hargeysa welcome asiya soo dhawaabtay ma seexanayo oo kunta markaa waxaa loogu talagalay qofka bili aadanka ama ha yaraado ama ha weynaado hadduu ugu yar yahay 6 bilood hadduu ugu weyn yahayna 90 sano laba xabo oo kuna ama xabad 120 gram oo kuna 120 gram oo kuna qofka way ku filan tahay don't eat 5 eggs ha cunin 5 xabo oo kuna ha cunin baaquli bariisa ha cunin 5 xabo oo ha cunin jeex hilib ha cunin don't eat over eating baad samaysay maxaana kugu xigi doonta inaad gacmo dhuuban yeelato sidaydan oo kaleeto calool yar oo kuusan aad yeelato ood ordi kari weydo adigoo 30 sano jira ar ilmaha ii soo qabta waxaasina caqli ma aha ma fahmaysaa iyo ma kici karo waxaad arkaysaa qof asagoo sariirtiisii saaran ama kursigiisii fadhiya iska jabaya baf ma halba uu jabaya qarbash hebla way jabtay iyadoo gurigeeda joogtay jabtayo dee la garan maayo waa aqoonta waa intaas wax kale ma aha maxay cuntay bariis iyo baastiyo hilibun bay cuntaa biyo ma cabto qudaar ma cunto ama ma cuno qasab qofkaasi waxaa lumaya fitamiinadii cuntooyinkan kala duwan ee laga helayo ayaa lumaya waxaan ku soo gabagabaynayaa carruurta qurbaha ku dhalatay tusaale u soo qaata cunug socod xun ma aragteen ma jiro ilmo socod xun ma jiro cunug ilka dhaadheer la miyaad aragteen ma jiro cunug gacmo dhuuban iyo kuba dhuuban la miyaad ku aragteen carruurta qurbaha joogta ma jiraan mid ilka dhaadheer miyuu ku jiraa maya sababtu maxay tahay waa balansiga cuntada iyo socodka I'm eating 5 eggs okay insha Allah ilaa khayra ka laba xabo 120 baa kugu filan ama xabad ukuna laba cantoobo oo kaarooda laba cantoobo oo digir ah xabad rootiga madow ah intaasaa kugu filan iyo caagad biyo 500 gram oo water wax kale uga baahan lunch time ka markay tahay waxaan idin kula taliyay haddaad cuntaan baaquli bariisa iyo baaquli hilib haddaad cuntaan laba saxan oo bariisa iyo saxan hilib haddaad cuntaan qasab waa inaad cuntaa hal qaado oo macaan noocay doonta ha noqoto ama kastar ha noqoto ama keeg ha noqoto waa inaad cuntaan meeshii haddii calcium iyo carbohydrate muxuu meeshii laga buuxiyo qofku wadnaha garaacmaya hadhow waalanaya qofku asagoo yar wuxuu ekaanayaa inuu 50 jiro ama 70 jiro asagoo 20 jiro hadduu qofku 40 sano u ekaado soo khatar ma way Soomaalida way ku badan tahay markii laga reebo arrimaha duruufta ana duruufta waan ka reebayaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin allahumma salli ala sayyidina muhammad ilaahu adaa weyna waaxida haddii aan wax hagaajiyey ilaahu weyna waaxida igu toosiyey haddii aan wax khaldayna oday qaxooti oo qurba jooga baan ahay dhib ma laha waan soo dadaali doonaa laakiin waxa inta badan aan idinla sheer gareeyay idinla wadaagaa inta badan waa waxaan dhigtay iyo waxaan true research ku sameeyay waa waxaan run u soo baaray iyo waxaan dhigtay intaasaan idinla wadaagaa waa la igu yiri waa ku tiri kuteen maamul goboleed baan ka soo bowsaday waxaas anigu kuma shaqeeyo dhammaan dadka Soomaaliyeed waan jecelahay meel kasta aad joogtaan waa isuu keemid baa tihiin deegaanka doonto kaymo Soomaali dhaka weynaa tahay yeynaan isla meeraysanin aan isku soo meeraysano alxamdulilaahi rabbil caalamiin aad iyo aad baan idin salaamaya khayr iyo wanaag baan idin dhaafayaa waxaan ka hadli doonaa topic muhiim ah oo autism xanuunkan autismka la yiraahdaan ka hadli doonaa anu ma dhiganin cilmiga ma baranin laakiin research baan ku soo sameeyay Soomaalida midda kale waxaan kula dardaarmayaa dadka aqoonta leh ee professionalka aqoonta leh
meesha shahaadada lagu siiyey iyo jaamacadda uu soo dhigtay iyo kolleejka uu ka soo baxay aad garanaysaan hadduu ku cilmi dhaamo knowledge-ka ka qaad dabeecaddiisa ha qaadanin anigan hadda idinla hadlaya laftayda dabeecaddayda ha qaadanina laga yaaba inaan mararka qaarkood aan behaviorday inaan mararka qaarkood wax khaldo laakiin aqoon badan baa igu jirta aqoonta ha qaata may maqlaysaan I've got lot of skills and experience aqoon badan baan leeyahay skills badanna waan leeyahay iga qaata intaas laakiin dabeecaddayda ha qaadanina oday Soomaaliyaan ahay marmar waan isku dhex dareersami karaa ma garanaysaa ha qaadanina insha Allah marka arrintaasaan ka hadli doonaa oo aan research ku soo sameeyay oo waxaan talo ma la isku dhalaa autismka talo ma la isku dhalaa mise waa xanuun muxuu xanuun ka yimaadaa talo taa lafteeda research baan ku soo sameeyay iyada lafteeda insha Allah waan idinla wadaagi doonaa dad aqoonteeda la baan la sheekaystaa marka dadka aqoonta la sheekaysta anuu hadda xanuunkan hadda aan idinkala hadlayo autismka dad dhakhaatiir oo isku meel ka wada shaqeynaan anuu ayaan kala sheekaystay oo aqoonta leh ayaan kala sheekaystay oo waxaan inuu hiridid yahay sida macaanka iyo dhiikarka oo kale ila waa la isku dhalaa Sooma hadii aabaha waa la adna waa laan Sooma aakhirka marka dambe hadii aabaha dhiikar iyo macaan lahaa adna dhiikar iyo macaan inaad yeelato qasab baa dhici kartaa waa waxyaalahaas ayaa marka xanuunkan autismka asaguna talo saasoo kale ma yahay waan idinla wadaagi doonaa dhakhaatiirtana weydiiye inta ay sheegan dhakhaatiirtaasna waan idinla wadaagi doonaa aad iyo aad baan idin salaamaya dadka Soomaaliyeed ha noolaadaan ha isla noolaadaan hana noolaadaan السلام عليكم باي باي